waalid haddaad tahay saddex wax iska ilaali. caruurtaada kama baqayaan that much effect badan kuma yeelanayso inuu maarta qolkiisa mugdi yahay. mugdigaasu ka baqayaa monsters iyo waxyaalaha caruurta yaryar baan ka hadlay anigu. waxa kama baqayaan, laakiin waxa effect weyn ku sameyn doono oo ma aragtaa markay weynaadaan ee ka fikiri doonaan psychological effect ku yeelan doonaan waxa ka mid ah weligaa laha ilmahaadii ha ku dhihin, ha u hanjabin oo ha ku dhihin meel baan ku geynayaa, maxaan ku dhahaa amgana xaggaasaan ku geynayaa ma kuu soo noqonayo, macnaha xaggaas waddankaasaan ku geyn doonaa iyo kuma soo laaban doono iyo guriga hebel baan ku geynayaa kuma soo laaban doono iyo iskuulka ma arta waqtiga laga qaadayo aad iska ilowdidba. caruurtii ku sugayaan iska istaagan yihiin meel saacad dhan ama adigu 30 daqiiqo dhan. don't ever ilmahaada inuu ku sugo intaad hilmaamtid. Soomaali weeyaan, Soomaali waxa ma fahmayaan. abandonment baa la dhahaa waxaas. abandonment, okay? It's time dadka ma arta wax bartay ilmahoodii inay ma arta ku koriyaan conscious parenting. waqtiga conscious parenting ka sameynayna loo baahan yahay. lama baahano mataqaanaa waxaan ma artaa oo survival ka ah oo cunta lagu siiyay, guri baa leedahay, guri baa ma artaa biilka waa laga bixiyaa, cunto waa haysataa, dhar waa haysataa, maxaa kaloo rabtaa? There's more than that oo ilmaha u baahan yahay, cunugaada u baahan yahay. safe waa inuu dareemaa ilmahaada, waa inuu kaa dareemin abandonment. abandonment macnaha ma arta inaadan iska ilowdidba ama aad mataqaanaa qof kale kuu koriyo ilmahaada adiga aadan korsanayninba, ama guri hebel aad ku tuurtid oo iska bixiso iska party garaynaysid adiga aad ka maqan tahay. This you think inuu hadda ma arta effect yeelayna, laakiin markay weynaadaan it will have effect on ilmahaada maskaxdiisa. so maxaa ilmaha haddii cunto la siiyo, haddii ma arta la take intaa ka badan muxuu ugu ilmaha ma xayawaan ba emotions buu leeyahay. ma xayawaan ba ilmaha ma bisad yar ba ma ay oo ma arta inta cunto dhigtid aad ka dhaqaaqaysid ba. midda labaad, cunuga markuu oonayo ama markuu caraysan yahay ama markuu mataqaanaa dareemayo cabsi, whatever feelings uu dareemayo ha ku dhihin ma aragtaa waa la oonaysaa. naga aamus, maxaa la oonaysaa? maxaa la cabsanaysaa? fulay baa tahay. No, do not invalidate their feelings. feeling uu dareemayo wuxuu dareemayo it is valid. ha ku dhihin maxaan ku dhaha maxaa waxaa u dareemaysaa iyo maxaad la caraysan tahay iyo maxaa saar la tahay iyo wejiga kala fur, happy iska noqo, maxaan ku dhahaa qosol, iga daaq ooyinta. ilmaha waxa ku ridaysaa waali caadi ah markuu weynaado wallah, iyo wuxuu dareemi doonaa feelingkiisi iyo dareenkiisi inuu ma arta qof kale la wadaagi karin, because adigii baaba crush garaysay, adigii waalidka ah baaba crush garaysay. wuxuu dareemayay waxa u sheegtay inayna ma aragtaa valid ahaan. wuxuu dareemayay inuu waalayaho kale, wuxuu dareemayay inuuna dareemin, feelingkiisi oo dhan baa dismiss garaysay. marka hikanaa bi ma arta safe ma agtaada ma noqon karo. wuxuu dareemay kulama wadaagi karo, haddii mataqaanaa sadness uu dareemayo kuma tusi karo. hadduu the only feelings uu ogolaanaysa is happy feeling. qofkan sida adiga ma arta happy maalin kasta u ahaa buuna u dareemayna cunugan yar. cunug yar ha ahaado, cunug weyn ha ahaado. do not invalidate ilmaha feelingskooda. dareenkaa sheegaysa muxuu yahay? cunug xun baa tahay. no, adigaa ku bilaabin abuse-ka ilmaha. midda saddexaad, cunugaadi ilmahaada u ogolow inay ra'yi yeelan karaan, inay fikir yeelan karaan, inay opinion yeelan karaan oo ka duwan opinionkaada. you don't need to be inaa adiga mar waliba harsh opinions kaada inaad u sheegtid. you don't need to, because waxaad rabtaa qof maskaxiyan prepared ah oo maxaan ku dhahaa markuu ma aragtaa society-ga soo dhex galo opinionkiisa ku socon karo, maskaxdiisii ma aragtaa qof xukumaynin, qof kaloo faciisi ah beri ka maalin uuna xukumaynin, qof
mataqaana qalad iyo sax kale ma aragtaa kala ogaan karo qof opinions of others qaadanaynin oo ma aragtaa dadka kale waxay leeyihiin ku noolaanaynin oo maskaxdiisa ka socdo uu noqonayaa ilmahaada so you don't need to inaa ma aragtaa waxyaalo yaryar oo hataa malaayacni ah inaa ma aragta gurtaa may ka samay kaa samay choice ilmaha sii ilmaha ku bilaaw isagoo yar maxaa rabtaa inaa cunto ma kan baa rabtaa mise shaygaan baa rabtaa inaa cunto okay maxaa rabtaa inaa gashatid dharkaan baa rabtaa inaa gashatid mise kan choice ayaa siisay haddaa choiceka dhan ka qaadid opinionkaadu uu maanta oo dhan aa u sheegaysid fikirkaaduna u sheegaysid fikirkaada ka dugan marka uuba ku dhaho threaten baaba dareemaysaaba cilkaaba gelaysaaba seedeeba ma aragta aniga aba ii challenge garayn kartaa adiga ma ilaahay baa tahay bini aadan soo ma tihid midda kale do you know this service baa u samaynaysaa ilmahaada you think adiga aniga waalid baa ahay oo waxa weeye see la ii challenge garaynaya powerkaa yar baa rabtaa power struggle baa ku jirtaa ilmaha yar ma aragta inaa ma aragta ya aad dareensiisid ya ilmaha adoona cabsi iyo waxaas gelinin haddaa si fiican u soo kursid oo naxariis ku soo kursid oo maxaan ku dhahaa ixtiraam ku soo kursid isagaaba already ku siinayo waxaa raadinaysid powerkaasaa raadinaysid iyo maxaan ku dhahaa xishmaddaa raadinaysid iyo wanaaggaa raadinaysid iyo jacaylkaa raadinaysid ilmahaas automatically isagaa ku siinayo laakiin adiga waa inaa ma aragtaa asiisa isaga spacekiisa adiga waa inaa u ogolaataa xuquuqdiisa ya ilmaha opinionskooda hadduu kaa dugan yahay fikirkiisa hadduu kaa dugan yahay okay ii explain garay ku dheh how seeba ma aragtaa aduu fikirkaasaa ku noqda ku bilaaw isagoo yar inaad train garaysid and ha crush garaynin oo dhihi waa qaladan tahay ayno alaar waalid baa meesha intay soo galay dhahayaan edab darrada ku adeeysan maxay tahay maxaa ilmaha noogu dirdiras anaaba waalid ah adeer aniga naftirkeygii baa waalid ah anaa ilmahayga saas baan ku baraa hay dhihin say wallaahi waxoodii ha noola imaanin wax barta guys wax barta